asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii dabagalka wararka. fadlan haddaad kanaalkeenna ku cusub tahay sabskaraib noo saar si aad ula socoto wararkan xiga. mahadsanidin. haddii aragtii siyaasadeed lagu kala aragti duwanaada imaadaan waa tilmaameynaa ya marka wixii aan madaxweyne farmaajo ka diidnay yaanu lagu dayinaan leenahay mar kale yaan lagu dayin marka in madaxweyne la bedelo madaxweyne kala yimaado laakiin muhiimadaan lahayn waxay ahayd madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu madaxweynaha federaalka inuu noqdo ahayd. kaasina wuxuu ahaa wasiir ka mid ah xukuumadda Puntland. maamulka Puntland ayaa maalmahanba waday xurguf ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. maamulka Puntland ayaa kadib markii uu waayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga dib u eegista dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa indhahooda ku jeediyay dhankaas iyo xukuumadda. maamulka Puntland ayaa wada qorshayaal badan oo ay kaga hor imaanayaan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. isbahaysiyo dagaalo indirect oo lagu qaado xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud lagana lumiyo waqtiga sidii looga lumiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuusan ka yeeli doonin waxyaabihii uu ka diiday maamulkii Farmaajo xukuumaddan Xasan Sheekh Maxamuud. go'aanimo dawlad xagee go'aanimo taala dadkeena dhimanaya dadkoodii dhimanayaan waxay u dabaaldegayaan maxay tahay goobaan intee goob ka nahay dadaan tuugsanayna masaakiin dadkii dhimanaya xataa aniga waxaan soo jeedinaa halkan dadka ku mashquulsan xafladda 16 Juun kooda Luulyo sida ugu basiidsan inay u sameeyaan. ergeyga gaarka ee gurmadka abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dagaal afka ku qaaday qayb ka mid ah xukuumadda federaalka Soomaaliya oo waqti badan iyo dhaqaale badan gelinaysa u dabaaldegga 26 Juun iyo 1 Juulaay ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aad ugu horyimay qorshahaasi sheegana in dadkeenii oo abaaro u dhimanaya la geliyo dhaqaale badan iyo isku imaanti iyo xaflad iyo teendho waqti la geliyo aysan waxba ku soo kordhinayn xaaladda maanta. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xukuumadda cusub ugu baaqay inay waqtiga geliso sida loogu gargaari lahaa dadka abaaruhu saameeyeen. haatan dhankaas iyo Somaliland dowladda Ingiriiska ayaa ka goosatay dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Somaliland iyo maamulka Somaliland guud ahaanba. dowladda Ingiriiska ayaa arrintaas u sababaysay kadib markii shaqaaqooyin aad u weyn ka dhaceen magaalada Hargeysa. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in mucaaradka Somaliland xaq u leeyihiin inay mudaharaadaan. sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in xabad nool lagu furo shacab iyo xildhibaano xasaanad leh ay keeni karto in dowladda Ingiriisku ay ka fikirto caawimaadii iyo dhaqaalihii ay si tooska u sii jirtay Somaliland. ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Barre ayaa maanta hortagi doona baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya halkaas oo lagu qaadi doono codka ansixinta. durbaba waxaa bilowday dhaqdhaqaaq ka dhan ah ra'iisul wasaaraha kadib markii xildhibaano badan oo ku jira aqalka sare ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay ku soo biiraan golaha wasiirada maadaama hadda xukuumaddii hore iyo xukuumadda hadda jirtay ay ogol yihiin in wasiirada lagu soo dari karo kaliya golaha shacabka. xildhibaanada aqalka sare ayaa ku doodaya inay qayb ka noqon karaan sharci ahaan xukuumadda cusub. sidoo kale xildhibaanada maamulka Puntland oo aad u careysan ayaa iyagana sugaya inay ka gutaan waajibkooda ra'iisul wasaaraha cusub ayaa maanta ku jira dagaalkiisa ugu dambeeyay in lagu ansixiyo codka aqlabiyadda ee xildhibaanada federaalka Soomaaliya. xukuumaddii ka horeysay ayaa lagu ansixiyay 215 cod. maanta xildhibaan Xamse Barre ayaa wuxuu leeyahay rajo aad u wanaagsan kadib kulamo goosgoos uu la qaatay xildhibaanada Hirshabelle, Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. dhageystayaal wanaga intaas wixii warar fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto wararkan xiga. mahadsanidin.